mudaharaadyo rabshado wata oo saameeyay gaadiidka dadweynaha kuwa sida gaarka ah loo leeyahay ganacsiyada Soomaalida ee magaalada dhexdeeda ah ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika mudaharaadayaasha oo aad u careysnaa ayaa qasaare lixaad u geystay ganacsiga Soomaalida iyagoo boobay dukaan kuwa kalena ay gacmaysteen xilli uu booliska Koonfur Afrika la socday iyo ciidamada sida gaarka ah loogu talagalay ka hortagga rabshadaha iyo mudaharaadyada dawladda aan ka warqabin inta la og yahay hal gaari oo ganacsiyada Soomaalida leeyahay ayaa la qaatay mid kalena muraayadaha ayaa la gaargacan ay gabar Soomaali ah leedahay oo lagu iibiyo jibsiga macmacaanka iyo sigaarka ayaa isagana la boobay nin boolis ah oo Universal TV u waramayay oo diiday min magaciisa iyo muuqaalkiisa la shaaciyo ayaa sheegay in mudaharaadkani aysan booliska ka warhaynin wuxuuna sheegay in Soomaalida ay taxadarto maadaama inta badan la beegsado ganacsiyada Soomaalida Maxamed Saadam oo kamid ah ganacsatada deegaanka ay Soomaalida u badan tahay ee Belfal ayaa ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen iyo qasaaraha Soomaalida la soo gaarsiiyay farabadan ayaa isweydiinaya sababta mudaharaadkan loogu qabtay deegaanka ee Soomaalida u badan tahay oo ah meel xaafad ah iyadoo inta badan mudaharaadayaasha ay ka dhacaan dhaxbartanka magaalada Cape Town sida daarta baarlamaanka aqalka loogu taliyo gobolka Western Cape iyadoo banaanbaxayaasha ay dalbanayaan in dawladda Koonfur Afrika ay mushaaraadka u kordhiso Maxamed Deeq Muuse Nuur Universal TV South Africa booliska magaalada London ayaa baaritaan ku wada